Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada maanta muuqaalkan waxa uu hadli doonaa filim lagu magacaabo Lucky One wiilkii nasiibka badnaay kana waa Logan waxa uu ka tirsanaan jiray ciidamada Marines-ka ee Mareykanka waxa uu fadhiisan ku lahaa Ciraaq waxa uu arkay saaxiibadiisa oo dhimanaya isagoo mid kala caawinaya maalintii dambe ayuu arkay sawir gabdheed oo jiifa qofka dhintay sawirka ayuu dad badan weydiinayay laakiin cid sheegan karto ma jirto markaas ayuu gartay in sawirkan uu lahaa saaxiibkii kuwaas oo ku dhintay dagaalka Logan waxa uu ka tirsanaa magaalo Mareykanka ah oo lagu magacaabo Colorado waxa uu ku noqday gurigii walaashii oo xanuunsanayd maalmo ayuu meeshaasi joogay waxa uu go'aansaday inuu guuro markaasi wuxuu go'aansaday inuu ogaado gabadhii uu sawirkeeda ka helay goobta dagaalka waxa uu u sheegi doonaa geerida saaxiibkiis waxa uu sawirka ku arkay iftiin marka uu si qoto dheer u falanqeynayo wuxuu dad badan ka wareystay gabadha laakiin ma helin wax cadeyn ah waxa kale oo uu booqdo ku-xigeenka Shariif oo loo yaqaan booliska deegaanka waxa uu u sheegay in gabadhani uu hore u qabay saaxiibkii dabadeed ciidanka ayuu siiyay Logan ma sheegi karin sababta uu halkan u joogo ka hor inta uusan hadlin waxay u maleynaysaa inuu halkan u joogo shaqo Beth ayeeydid ayaa shaqaaleysiisay asiga bilowgii Beth waxay dareemaysaa murugo mana jecel Logan laakiin dabadeed way aqbashay kadib markii uu si xiiseynayay shaqada si fiican ayuu u yaqaanaa sida loo hagaajiyo mashiinka Logan waxa lagu daray wiilka Beth wayna saaxiibeen Beth kaligeed ayay noolayd tan iyo dhimashadii walaalkii Beth ma lahayn saaxiibo rag ah waxay saaxiib la noqotay nin rag ah muddo dheer kadib Logan wuxuu ahaa shakhsi Beth ninkeeda koowaad oo ahaa sarkaal boolis ayaa looga shakisan yahay Logan waxa uu leeyahay dabeecad xun marka uu la hadlayo Logan si aad u qalafsan oo cay ah ayuu ula hadlaa wuxuu kaloo kula taliyaa wiilkiisa inuu ka haro Logan waxa uu ku dhahaa kan ilaali in aan loo baahnayn gitaarka in lagu ciyaaro wuxuu ka codsaday inuusan waqti badan la qaadan asiga maalin maalmaha kamid ah Ben waxa uu ku ciyaarayay banaanka balse markii uu soo noqday waxa ka buuxsamay asiga dhan dhiig wuxuu dhaawacmaa isaga oo ciyaaraya Beth iyo ninkeeda hore ayay muran u dhaxmaray aad bay u murmeen Beth ninkeedii hore ayaa u sheegay inuu aadi doono maxkamad wiilkana way sii haysan doonaan Beth aad ay ugu walwalsan tahay intaas kadib waxay ka baqaysaa in ay weydo wiilkeeda waxay bilowday nolol walaac leh muddo dabadeed Beth walaalkeed sanad guuradii dhimashadiisa ayaa timid aad ay u walwalsan tahay laakiin Logan ayaa u soo dhawaaday oo u muujiyay dareenkeeda wuxuuna ka codsaday inaysan walwalin wax walba way fiicnaan lahaayeen Logan iyo Beth waxay yeesheen xidhiidh aad u wanaagsan wayna wada socdeen laakiin ninkeedii hore ayaa ka codsaday inay ka fogaato isaga ma sameyn kartid tan kama baqayo asiga adiguna ma tihid qof faragelin kara go'aamadeyda Beth ninkeedii hore ayaa baaray Logan oo wuxuu ogaaday inuu yahay Beth sawirkeedii oo uu dadka weydiiyay wax iyada ku saabsan wuxuu dadka weydiinayay inay Beth ka garanayso iyo in kale wuxuu u sheegay in Logan uu baacsanayay isaga ma aha qof sax ah waxaan ogaan doonaa xaqiiqada Beth ayaa ogaatay xaqiiqada in Logan uu ka tirsanaan jiray badda wuxuuna sawirkeyga ka helay meel u dhow ninkeedii dhintay iyo aha saaxiibka u wanaagsan laakiin halkani kalsoonida Beth ee Logan way burburtay way ka carootay isaga oo iska fogeysay Logan waxayna ka codsatay Logan inuu baxo saaxiibka Beth ayaa u sharaxaya in Logan aanu wax qalad ah ku lahayn arintani taasina Logan uu ka badbaaday walaalka iyo saaxiibka way dhinteen waxay ku qanacday in Logan uu yahay qofka wanaagsan waa inaad ka fikirtaa asiga Beth aad bay u walwalsan tahay oo xanaaqday Beth ninkeedii hore waa sarqaansanaa wuxuu arkay Logan oo eegiisa la socda qorigiisa ayuu xagiisa u saaray dadkii meeshaasi joogay way baqeen oo way carareen Logan ayaa qaatay qorigiisa oo ku wareejiyay sarkaal kale Logan wuxuu u yimid Beth mar kale wuxuuna u sheegay sarkaal kale oo la dhashay Drake inuu dhintay wax kasta oo tafaasiil ah ayay u sheegtay oo waxay ku tiraahdaa inuu ahaa qof geesi ah Beth ninkeedii hore ayaa la kulmay oo ku yiri waan ka xishoonayaa oo waxaan doonayaa in aan mar kale bilaabano xiriir waxa uu u sharaxayaa iyada in aanu noqon karno nin iyo naag mar kale oo qoyska bilaabi kara Beth way diiday laakiin ninkeedii hore ayaa mar kale ugu digay inay wiilkiisa ka kaxayso maxkamadda Logan ayaa isna halkaas yimaaday wiilkooda wuu dhageystay oo u orday dhankii geedka u dhawaa way argagaxeen wayna raaceen sababta uu ugu soo cararay geedka waxaa jirta buundo u dhow dariiqa guriga geedaha taasi waxay ku kala baxaan markuu sheego joogay wiilkii Beth iyo ninkeedii hore waxay ku dhaceen webiga laakiin way badbaadeen sababtoo ah ninkii hore ayaa naftiisa iyo wiilkiisa si adag ugu xiray Logan wuu caawiyay iyaga oo badbaadiyay wiilkeeda oo ku wareejiyay Beth intaasi kadib wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo ninkeedii hore ee geedka ka jabay oo waxay ku dhacday ninkeedii hore oo isla goobta ku dhintay ninkeedii hore webiga ayuu la sabeeyaa
dhammaantood waxay ku soo noqdeen guriga. Beth ayaa u mahadcelisay Logan oo sheegtay in haddii uusan halkani joogin wiilkeeda uu dhiman lahaa. Logan ayaa sidoo kale u sheegtay in walaalkeed uu dhintay isagoo badbaadinayo saaxiibkiis iyo intii lagu guda jiray dagaalka. Taasi waa sharaf, marka waa inaad faraxsan tahay intii aad ka welweli lahayd. Logan dabadeed wuu lumay. Dabadeed Beth aad bay ugu qososhay isaga, waxayna u sheegtay Logan inuu la xiriiro dhammaantood. way igu adkaan lahayd inaan noolaado la'aanta. Sidoo kale muuqaalka soo socda waxaan aragnaa Beth, wiilkeeda iyo Logan ayaa midba midka kale la socday. waxay u dabaaldegayeen dhalashadiisii 9aad ee ina Beth aad bayna u farxeen. waxaana halkaasi ku soo dhamaanaysa sharaxaadda wiilkii nasiibka badnaa.